الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. taliyaha ciidanka xoogga dalka, taliyaha saadka, taliyaha kumaandoosta gorgor, taliyaasha colalka kala duwan iyo ciidan, salaamu calaykum waraxmatullah. runtii saakay sharaf weyn ayay inoo tahay inaan joogno degmada Ceeldheer, aan la joogno ciidankeenna mujaahidiinta ah ee halkan wacdaraha ka muujiyey, xoreeyey, difaacay, ku sugan, ilaaliyey, sababayna dadkeedii 10 iyo dhowrka sano ay haysteen, 12 sano, 15 sano ka badan, in maanta si xor ah ay ugu nool yihiin deegaamadoodii. waa ku mahadsantihiin, waan idinkaga mahadcelinaynaa. booqashada taliyaha sheegay ujeedkeeda waxay ahayd madaxweynaha qaranka, waad maqasheen khudbadiisii 2 habeen ka hor, habeenkii jumcada ay soo galaysay. hala diyaar garoobo faray, hala diyaar garoobo ciidanka kala duwan iyo shacabka Soomaaliyeed. ayaan dhaweyto ayaa waxaa la yidhi cadawgan hor taagan muxuu dhan yahay tiradiis, markaasaa la yidhi waa 6,000 waa 8,000, qolada ugu badan 10,000 bay gaarsiisay. 10,000 oo ciyaal yaryara oo khawaarija oo aan rajo lahayn oo dalay xoreynayaan aysan jirin. calanka hadda aad qaadayseen heestiis oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan adduunka u yaqaano, calankaas waa inkirsan yihiin. dalkeenna xuduudihiisa waa inkirsan yihiin. diinteenna dadkii Soomaaliyeed ee Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu Maka ku noolaa, asxaabtiisii Maka lagu dhibay ee hijrootay, dhulkii ay soo hijroodeen, diinta sidaas lagu qaatay intaan Madiina la gaarsin. diinta intaan Madiina la gaarsin ayay soo gaartay Soomaaliya. diintii xilligaa soo gaartay oo islaamkuba boqolaal ahaa, boqolaal xataa 2,000 ma gaarin, oo isqarinaysa, boqolaal isqarinaysa, oo cadaadis ku sugan. diintii soo gaartay xilligaas ee la ilaaliyey ayay yidhaahdeen dadka oo dhan murtadiin waay. shacabka Soomaaliyeed oo dhan oo diintaas haystay oo cid kastoo isku dayda inay beddesho, Afrika oo dhan waa la beddelay. dowlado badan baa dadkoodii diimihii ka noqdeen diinta islaamka iyo diimihii haysteen oo diimo kale qaatay. diintaas 1400 iyo xoogaaga sana nala noolayd oo qalbiyadeenna ku noolayd bay yidhaahdeen dadka Soomaaliyeed waa murtadiin, diintii waa ka baxeen. macnihii dal nagama dhaxeeyo, diin nagama dhaxayso, calan nagama dhaxeeyo, ciyaalkaas xunka wax naga dhaxeeyaa ma jiraan. waa nimankaas duurka cidlada isku qarxinaya, waa nimankaas xitaa waalidkooda ka soo cararoo laga soo xado. ilmahaas yarkaayo tiradooduna intaas tahay, mabda'ooduna sidaas yahay. ma suurtagal baa 18 sano, 19 sano inay dalkeenna ku sii sugnaadaan oo caqabad ku noqdaan horumarka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed? suurtagal miyaa ciidanow? ilaahay hortiisa suurtagal maaha. dadka Soomaaliyeed way sakranayaan, ayagaa isakranaya. qabaa'il waaweyn oo haddii qabiil kaloo Soomaaliyeed dhulkooda xitaa taaka yar uu ka soo galo hubka dafaya ayaa haddii khawaarij qabsataan waxba u arkeen. haddii Soomaali kale meesha timaado tira ceel baan ka qodanaya, xitaa meel yar oo dhinaca waxaa la wada qaadanayaa hubkii la hayo oo dhan. hagar weyn baa jirta. nimankaas marka khawaarijta nabiga sallallahu alayhi wasallam hadda aan amaanay wuu ka hadlay. aakhiru zamaanka waxaa soo bixi doonuu yidhi ciyaal yaryar, xudathaa alasnaan, kuwa yaryar oo caanihii hooyadooda ay ka soo nuugeen weli ilkooda ay ka muuqato, yaryara, salaadoodu markay tukanayaan iyo markaa tiinna isku barbar dhigtaan waxaad isleedihiin salaaddaa tukanaysaan waxa maaha.
يعني سيوتو كريان وجهاس مدو ما أنتوا قرآن كمركي أخرينيان هي مركز أخرينيسين واحد إسلادين كين وحما هم عبادة يسيدي وسوميان صون كينو مركز الله في ريكودا كينو وحما هم إسلادين يعني ماشي كجارين قرآن أخرس هي صلاة هي صون هي عبادة لكن دين تود وهل كان مدافع يسوي النبي صلى الله عليه وسلم قال حماها صنافي ميس ما هل دا دكسن معها ووح أف هي مظهر هي مغال كليا وحدة دكسن أو قلوب تجرتما كواسي وحيري وحال ليباني كان ليباني ومتك لكل ما أودله نينك كواسي وقتي زي صباحان أيا ليباني أودله أما أي دلانو شهيدة الله أكبر nimankaas marka dhiigooda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam baa ka warramay culumadii Soomaaliyeed oo dhan 2023 waa shireen 300 oo caalim oo Soomaaliya la isku keenay xamar dal iyo dibad wixii sheekh jooga Soomaali waa la isku keenay war nimankaas xukunkooda keenaa leeyahay maxay nimanku islaam baa waa yaabnay nimankii aayadii bay akhrinayaan waa daliilinayaan waa tukanayaan jihaad bay leeyihiin barbal waxaan nooga warrama dawladda Soomaaliya weydis waad ogtihiin waan ka helay YouTube-ka ku jira culumadii oo dhan shirtay waxay yiraahdeen khawaarij magaca khawaarij halkaas ku yimid nimankaasi waa khawaarij dilkooduna waa banaay waa la dilayaa waa lagu cibaadeysanaya dilkooda waliba nimankaas marka sidaas culumadeennii nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo culumadeennii hadda nooleyd ay noo sheegeen inay maalin walba tuulooyinkeena iyo degmooyinkeena iyo dhibaato ka geystaan ama dalkeenna uu ku suntanaado khawaarij baa joogta 20 sano ku dhawaad hagar dadka Soomaaliyeed ay galeen kolley dawladdan way dadaash eeldheer rajal laga qabin حرنيره دولك اللي حريه ودنو وينو إلا حمر وفرن رجب بدل لك ما قبل لكن ددال حوقن بالموجي ددالك وقتين ماشي كوها كذا يوحبنا ومجرت كل سامباب البدن وكلا جرا اسكو ضيق كلا ترى بدن باجرة ديار جرا وكيك حوقن باجرة إذا كنتي واكل بجبارم مورال كنتي واكسر يا دالك هل كان ماشي على دكوا أدش دالك لا يقضي ما لا وحبي ذي جرين رجال لك ما قبلين شذال لك قضى ذلك السداسة أياد عيد كيسي شرف كيسيتين عيدا وشرف عيدا وشرفته وقص الرئيس ودليشه عيدا هو إلهي با إذن بضي إلهي با إذن دور رسيي إن هاد شرف كاس حنبارتان شرف كاس ميل يريان لديقين dadka Soomaaliyeed hadda dadka ceeldheerna kulay waa arkeenaa degmadii taliyana way sarkeen way idka amaan sheegteen waxa la xoreynayo ciidan kaliya maaha meeshaan dhulkaan iska cidlada ma waxa la xoreynayo ugu qiimaha badan dhulku in kastoo qiimo leeyahay dadka waa nimankan dadka ayaa laga xoreynaya dhulkana waa laga xoreynaya Soomaaliya inay isku furanto way sharafkaas iyo karaamadaas aad halkaan u joogtaan oo ciidamo kale ay furmo kale ugu jiraan ilaalo xoogan buu u baahan yahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullah calayh wa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa baddaluu tabdiilan aayad qur'aan weeye mu'miniinta waxaa ka mid a rag nin iyo rag waa kala duwan yahay mid kastoo laba xaniyood ku yaallaan rag maaha laakiin rag waxaa ninka dalkiisa difaaca geesiga midka khawaarijta canshuurta u aruurinaya rag laguma tilmaami karo midka dadkiisa u adeegsanayo naqiibyada kuwa nuqabada naqiib hebel leeyahay oo meelahan jooga raganimo waa ka dheerta cunug yar oo aan gobolkan xitaa u dhalan cunug yar oo meel uu ka yimid aan la garanayn mabda uu aaminsan yahay kuwii aan ka hadlaynaa ayuu dadkiisii u duleynaya
raggaas waxaa ka mida mu'miniinta ayaddu waxay leedahay mu'miniinta waxaa ka mida rag ka dhabeeyey ilaahay waxay kula ballameen qaarkood ballantaas ayagoo ku taagan bay shahiideen ama dhinteen qaarkood waa nool yihiin oo waa ku taagan yihiin ballantaas oo way sugayaan wamaa baddalu tabdiil wax iska beddelayana ma jiraan dad baa inta ayaan fikir fiican qaata haddana isbeddela ayagaas waxba iska beddeli maayaan ciidan waxaan iskula dardaarmaynaa dalka Soomaaliya cadawgiis waa weeya waa ballaaran yahay maalinba maalin ka dambeeya qolaa soo baxays fud markii wax yar la damco guul yar in la gaaraba qolo cusub baa hoos ka soo baxays kuwa Soomaaliya oo nala diira hadday sida shabaabkuba yihiin khawaarijtaan say yihiin waa nala diir waa ilmaheenni dalka lagu salladay kuwa waaweyn oo kaloo dalka lagu soo salladana waa jiraan waxaas waa laga guulaysanayaa waxaana loogu guulays kuwa ciidanka yidhi ciidankii Soomaaliya waa burburay Soomiina arkin Soomiina dhagaysan qaar xamar ka lahaa hal ururo isku toosan ma leh qaar farxaya markii tuulo al-shabaab ay qabsadaan qaar baa wallaahi farxaya qaar baa markii degmad ciidankeenu qabsado naxaya oo naxaya Soomaaliya rag waaweyn kuwaas waxaan ugu guulaysan karnaa dulqaad iyo risaalada waxaan u soconnay inaan ogaano dal baan xoreynaynaa ilmaheenaan rabnaa nabad inay ku noolaadaan dalkeennaa rabnaa dalalka caalamka inuu noqdo maahan midka la leeyahay maalin kasta no nothing midka la leeyahay maahan dal maahan booliis ma leh ciidan ma leh waa leeyahay ciidan dawlad jirtaan nahay ciidankeennu waa kuwan geesiyada oo la diriraya khawaarijta oo la diriraya cadow kasta waxaan ku soo gabagabaynayaa guushii way dhowda taliyaha ciidanka xoogga dalkuna runtii dadaalkiisa 24 saac ninka dhalinyarada suu u yimid ma nasan ciidankeennana in wax badan iska beddeleen waa ogtiin inuu ciidanku intuu ka dhaqaaqay shabeellada dhexe ilaa baydhabo socdo waad ogtiin rajal lagama qabin 8 sano ka hor mise 9 sano ka hor ayaa la yidhi baabuur loo waday baydhabo jidka ma la marsiin karaa dowladaha isugu yimid dowlado 3 dowladood ayaa inta isku timid baa markii dambe la yidhi in diyaarad lagu qaado ma ahane baabuurtaan jidka lama marsiin karo ciidankeenna keliya ayaana jidkaas maray oo waa ka zaahid taliya zaahid waa ها نكاسا انت دقاجي تليون أمرك بحي قال لك جوج انت دقاقي بيتغير شباب قلبودك مالك سيتغير بنتلان بجوغان وغوي بري بجوغان مالك ممنوع مجرى عيدك مالك ممنوع مجرى شرف كاس وانت دقاقي سين وانت سيداس دي رجلين تاسيو قبايا داسي هساس في عن aad maaragtay sheegaysaan waa inta marka meedaanka dagaalka la isku tagana fagaaraha dagaalkana aad muujinaysaan wacdaraha sidii ayaan dhaweyto September ka dhacday halkan meeshaan ceeldheer khawaarijtu markay isku dayeen inay maaragtay ciidankeena laayaan oo magaaladaana qabsadaan meedkooda ay ugu carareen meeshii meedkooda lagu daadsho meeshii dhiigoodu ku daato waa xuduudda noo dhaxaysa annaga iyo khawaarij dib dambe u soo hawaysan maayaan inkastoo kuwa waalwaalan mararka qaarkooda intixaariyiina ay isku dayaan intay xog naga soo raadiyaan intay ciidankeenna arkaan meelow ku kala daadsan yahay inay ka faa'iidaystaan isku dayayaan halla feejignaado dardaarankaygu wuxuu halla feejignaado dalku waa naga badaya mustaqbal weyn baa noo soo carfaya insha Allah maalmaha soo socotana guulo waaweyn oo halkaan ciidamadu inay ka dhaqaaqaan iyo meelaha kale baan rajaynaynaa guulaystaan idin leeyahay taliyahana siduu sheegay dee madaxdiina saraakiisha waa la fariisanaynaa wixii halkaan ka jira oo maaragtay wax in la badiyaa wax in tabashaa dhammaantood waa fariisanaynaa haddii la yiraahdo guulaystaan idin leeyahay ilaahayna waa idin guuleynaya waan wada guuleynayaa dalkeennuna dariiq sax ayuu qaaday
khawaarijtiina waad aragtay magaalada caasimadda ahayd miyaa sidaas weligeed looga dabaaldegay ma 200 oo kun oo qof isku soo baxday adduunkii dhan baa yaaban habeenkii kowda Juulaay soo galaysay 3 habeen ka hor 200 oo kun oo qof ayaa isugu soo baxday fagaaraha Taleex madaxweynaha lugeynaya oo hal qof oo tuuta wata oo la socod oo hubata qori wata oo kaliis iska socda ayaa dhex tagay nabadaas waxa laga ilaalinayaa halkan nabadda dadkaasi ku damaashaadayaan nabadda madaxweynihii uu ku socdo ciidan la'aan xamar nabadaas dhufaysyada midda ugu jirtaan way mid khasaara ma awalna sanad walba bil walba waan arki jir qofaan dadkiisii ku dhaawacmin waa yarya qofaan isagu ma aragtay dhibaato ka soo gaarin oo gaadiid uu leeyahay ama gaadiid qaraabadiisa ay leeyihiin qaraxyadii xamar ka dhici jiray qofaan dhibaato ka soo gaarin waa yarya ama qof uu san qoon uu ka soo gaarin maantana alxamdulillah sanad ku dhawaad wax la arkay ma jira nabad iyo baraar ay ku nool yihiin shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa wiilashan sharafkiinii way wiilashan waa kuwa u dhaartay oo u darban inay dalka xoreeyaan wiilashan garab istaag ay u baahan yihiin ama qabaa'ilka ha noqdaan ama Soomaali guud ahaantiis dal iyo dibadda dadka jooga sharaf aan leedihiin waa la idinku hurdaa waa la idinku tiirsan yahay rajadii ummadaatiin halkaas ka sii wada meel ka hooseysa dhiginina ilaahayna haydi guuleeyo hanana guuleeyo ciidanka xoogga dalkuna ha guuleyso